السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لكم على مدح برنامج كون كابتن نتورك أصحاب تمانين ونكسر وحويا اللهم صل على محمد. waxaanu yara eegaynaa Canadian dollar iyo franka Switzerland oo aad moodo inay fursad oo price-ku uu sameynayo. waxa weeyaan allahumma salli ala maxamed 1 hour range joognaa. 1 hour ku trend yar bayna tusay deedna price-ku level kaas ay jabiyay. waxa weeyaan zoonaha markasta uu price-ku pullback sameeyo in hoos u galo. اللهم صل على محمد زونها level kaas u jabiyay price-ku markaa hadduu xitaa xagga intaa pullback yar naga siiyo in hoos aynu u galno. waxa weeyaan pullback ha weynaado ha yaraado markasta uu price-ku pullback sameeyo xagga sare aynu kasoo qabsanayna. اللهم صل على محمد taas waa kaa markaa price-ku zoonaha ayuu dhaafi waayay oo resistance ah. zoonahaas oo resistance ayuu kor u dhaafi waayay. 1 hour ku intaas inuu sheegaya waaya. اللهم صل على محمد مثلا daily go kale hadaan eego daily go kale hadaan eegno wax kale markaynu iska dayno intaa waxaan ku xoojin karnaa. اللهم صل على محمد saddexda candle marka la isla aqriyo maxay noqonayaan? waxay tilmaamayaan price-kii oo price-ku kor u socday in markaa uu gabal baasi dumay oo markaa ay awoodda la wareegayaan maxay ay candleskii bearish-ka ahaa ay la wareegayaan. اللهم صل على محمد waxa weeyaan price-kii awooddii waa lagala wareegay. waa saddexda candle waxay tilmaamayaan saddex candle weeye oo tilmaamaya in markaa saddex candle oo tilmaamaya weeye bearish ama ah inuu sicirku markaa uu hoos u jabayo waay. اللهم صل على محمد إيكادي سيقطع كلام كلامه إيكادي waxaa muhiimayana levelka ay ku sameysmeen kaadi candleka xooggan ee polishka ah almost in ka badan 50% ayaa dagaalka haddana dib u dagaalka hoos la iskula soo noqdo. marka xagga oo aragtaan wax naflaan la iska adkaan zoonahan sellersku ay awoodda muujiyeen ee ay wax iska caabiyeen. waa zone maxay ah? waa zone inta soo jeer maal inta soo jeer buu support zoonahan noqday. waa 5 jeer iyo wax ka badan ayuu price-ku support zoonahan ahaa. marka markuu rabu si loo xawliya buu price-ku uu hoos ugu jabsaday deedna markan waa retest. markan zone weeye support in badan ahaa oo maxay resistance isu bedelay. zoonahan resistance buu isu bedelay. waxaa suurtagal in resistance isu bedelo haddii uu markaa dagaalka uu rumoobo ay rumowdo maxay in sellersku ay gacanta la wareegaan. اللهم صل على محمد marka waxa weeyaan waa waxa weeyaan price-ku wuxuu joogaa zone resistance noqon kara. zone resistance noqon kara oo hore in badan support u ahaa. اللهم صل على محمد waxaanu sameeyay sicirku candle pattern tilmaamaya bearish tilmaamaya. waxa weeyaan bearishkii ugu horeeyayna uu qabsoomay oo candleka ah bearishka ah ee xooggan baynu aragnaa. zoonuhuna waxa weeyaan udhiisu waa zone level yar oo resistance ah waay. اللهم صل على محمد oo hoos u jabsaday waay. zone yar oo resistance buu price-ku halkan liftirkeeda uu hoos u dhaafay. waan gartay. اللهم صل على محمد marka waxa weeye
مثلا 1 hour ko kale hadaynu eegno price-ku levelkaasuu hoos u jebiyey waxaas weeyaan markasta uu pullback sameeyo short baynu gelaynaa fikraddu way tahay marka card Swiss franc fursad baa ku jirta ah in short loo raaco marka maxay waxaan filaynaa inuu price-ku pullback sameyn markaas inuu price-ku uu hoos u sii socon doono laakiinse markasta oo aynu helno maxay sicir xoogaa yaro mukhaarij ah oo price-ku kor soo yaro baxaba waxa weeyaan waxaanu gelaynaa maxay sell baynu gelaynaa qorshahani waxa uu docda kale isku bedelayaa haddii uu price-ku uu halkaa kor u jabsado ayuunbay tahay sheekadu in laga guuro oo ay ka kac tahay inta ka horeysa waxa weeyaan short ayaynu la soconaynaa اللهم صل على محمد أصحابتي أنت زين كسو كوبيا وحسميسان الكير عس عدة ومقال كان كعسوب يهي وحنا شيء وحنا تو هون كابتن نتورك يوتيوب channel كا وحسميسان مقال كير عس بي سبسكرايب رونسا عدي كلا وحي فالله أي فكرة حق هوسة أي كومنت كوسو قريسا اللهم صل على محمد هذا السؤال مقال كم حبتك فايدة أقوم كرسيا وحاوليا نصور كيرنا وراعي كرتها اللهم صل على محمد انت سكسو كلها وحويان هدي ادونيسو marka taageera intan ka badan iyo positions kan galo iyo signals kan galo dhamaantood khasab ma ahayn ay badnaadaan laakiin dhamaantood marka marka la shaqeyso waxa weeyaan adeegaas oo dhameystiran waxa sameynaysaa linkska brokerska xagga hoose ayaad account live ka furanaysaa kadibna waad igu soo wargelinaysaa markaasaan ka hubin doonaa xagga brokerka wixii ka dambeeya wax kula wadaagaya maxay dhammaan positionska iyo signalska aan galo intaas ku soo koobi lahaa asxaabta shaqo wanaagsan card Swiss franc ha laga baaro maxay fursad ah short in loo galo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.